وانجعل غيد غشاديسي روحي ونفتيدي وقلبي وقودين يا غيب سيدي كوبت عندلي وكلام دبو جاليستان وقد تحتالي ينمع دفوان كولاي لما دوني دا لغونون يغوخي ما دير يا غير لحن برفاي لغو ما وغتمع كليل كذير ربي باي سوغو ديني تريعي ميلاد ديفتين دايخي جلي عامر قدك كما درقاياني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalahayga Soomaaliyeed ee igala socda bartaan YouTube-ka aan ku leeyahay ee Shukri Muuse Talent Channel mar kale iyo waa walaashiin Shukri Muuse oo idin wada barnaamij cusub barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa kalsoonida nolosha qofka bini aadanka ah ee nool waxa uu u baahan yahay inuu ku noolaado kalsoonida waxaan dhihi karnaa waa dhadhanka nolosha ayaan ku tilmaami karnaa kalsoonida sababtoo ah noloshu ma macaana inay ku socoto kalsooni darro waxay ku qurux badan tahay mar walba inay kalsooni ku socoto haddaba saaxiibayaal walaalayaal kalsoonida waxaanu u kala qaadaynaa laba qaybood labada qaybood oo kala qaadayna waxay tahay kalsoonida aad naftaada ku qabto oo ah tan koowaad tan labaadna waa kalsoonida aad dadka kugu xeeran ku qabto ama cidda aad nolol wadaaga tihiin ku qabto marka aan ku hormaro kalsoonida aad naftaada ku qabto waa muhiim inaad naftaada ku kalsoonaato waa muhiim allihii ku abuuray ka sokow awoodda ilaahay ku siiyey iyo caqliga ilaahay ku siiyey inaad ku kalsoonaato waa muhiim waxay muhiim u tahay noloshaada waxay muhiim u tahay taabaqaadka nolosha aad higsanayso qofku hadduunan kalsooni buuxda ku qabin naftiisa noloshiisu ma macaanaato waxbanana uma qaban karo naftiisa iska daa dad asaga ku taxalluqa oo ku xiran oo noloshoodu ku xiran tahay warkooda badaa waayo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa tiisa daryeele ayaa tu kala ku darsada marka hore inaad adigu noloshaada kalsooni ku qabto si aad maxay ahayday wax walba oo u baahan tahay aad u qabsan karto waa in adiga awoodaada shakhsiyadeed ilaahay ku tusaa haddaanad waxaad awoodo waxaad gasho waxaad goyso aadan adigu ogeyn waa dhibaato ay naftaada u tahay noloshaada ay dhibaato u tahay horumarkaaga ay dhibaato u tahay jiritaankaaga ay dhibaato u tahay marka waxa muhiim ah nafsadaada inaad kalsooni buuxda ku qabto oo aadan ahayn qof asaguba iska shakisan oo wuxuu qaban kara ka shakisan oo wuxuu asagu istari kara ka shakisan oo wuxuu bulshada tari kara ka shakisan inaadan noqonin ayaa marka hore wanaagsan marka qofku waa inuu kalsooni buuxda haysto shakhsiyadiisa ay dhisaysaa noloshiisana way dhisaysaa aayihiisa dambana way dhisaysaa adduunyo aakhiraba hadduu nafsadiisa ku kalsoon yahay ruuxa bini aadanka tan labaad
waa kalsoonida aad ku qabto cidda aad nolol wadaagga la tahay. dad reerkiini la nooshahay, reerka adigu aad ka dhalatay inaad kalsooni buuxda ku qabtaa. waalidkii ku dhalay, walaalihii kula dhashay, inaad kalsooni ku qabtaa. haddii aad tahay xaas ama aad tahay wiil xaasla ah, macnaha kalsoonidu kuma xirna rag iyo dumar, gender kuma xirna. waxay ku xiran tahay shaqsiga qofka kiisa ah, ciduu doonaha ahaada lab iyo dhidib. haddaad xaasla tahay oo wiil aad tahay, ama aad gabar tahay oo aad tahay xaas meel degan, waxaa iyadana lagama maarmaan ah labada nolosha wadaagtay inay kalsooni isku qabaan. maxay dhisaysaa kalsoonidaasi? kalsoonida dhexdooda ka jirta labada noloshu ay ka dhaxayso waxay dhisaysaa mustaqbalka iyo aayaha qoyskooda iyo awlaadooda. waayo dad nafta isu huray ee meel wada degan, ee la isku tiriyo, ee mas-uul iska ah, ee nolol wadaag ah, ee nolol wada wata, haddaanay kalsooni isku qabin noloshoodu ma socoto inta badan, ama dhex bay ku istaagtaa, ay ku banjartaa. sababtaas ayaan u leeyahay waxa wanaagsan labada ruux ee wada noolna inay kalsooni isku qabaan. kalsoonida labada qof ka dhaxaysa maaha kalsoonida adiga iyo naftaada ka dhaxaysa. kalsoonida adiga iyo naftaada ka dhaxaysa, adiga iyo naftaada unbay idinku xiran tahay. laakiin kalsoonida qoys meel wada degan ka dhaxaysa waa kalsooni la dhisi karo, lana baabi'in karo. labada ruux ee nolol wadaagga ah kalsoonidoodu waxa ay ku socotaa, xawliga ay ku socoto waa hadba sida iyagu u kobciyaan ama ay hoos ugu dhigaan. kalsoonida waa la abuuri karaa, waana la baabi'in karaa. marka ay dad kale kaala dhexayso ama qof kale kaala dhexayso, waa la abuuri karaa, waana la baabi'in karaa. sida loo abuuro si lamid ah ayaa loo baabi'iyaa. waa maxay sababta sida loo abuuro loogu baabi'in karo? adigoo waxaa laga yaabaa qofkan in yar aad istaqaanaan oo kalsooni weyne idin dhex oolin inaad isguursataan ama aad nolol wadaagtaan. noloshaas aad wadaagtaan hadba dhaqanka qofka dhigaaga ah kaaga yimaada ayaa adiga kalsooni kugu siyaadin kara oo kalsooni kugu abuuri kara, ama kalsoonidii aad hore ugu haysay kaa naaqusin kara. qofka bini aadanka kalsoonida siduu u dhiso ayuu u baabi'in karaa. kalsoonidu waa wax sahlan oo ku xiran qofka noloshiisa, la dhisi karo, lana baabi'in karo. hadba qofku sida uu u isticmaalo ayay u dhismaysaa ama u baabi'aysaa. for example, tusaale markaan soo qaato, nolol cusub ayaad dhisatay. qofka aad nolosha wadaagteen waxaa laga yaabaa nolosha horteed inaad wada sheekaysateen oo aad ilaa iyo xad kalsooni ku qabtay. marka aad maxay ahaday nolosha wada jaan qaadaan oo isla bilowdaan, waxaa laga yaabaa wixii shalay aad ku baratay waxaan ahayn inaad qofkii ku aragto, ama intaad ku baratay ka wanaagsan, ama in ka liidato ka xun. haddaad inta in ka wanaagsan ku aragto oo mar walba tabantaabadiisa iyo sheekadiisa iyo ka warhayntiisa iyo maaragtay kalsooni gelintiisa iyo tashigiisa iyo wax walba uu kaala tashado, oo malihi macnaha qof walba si gaara way jirtaa, laakiin tan qoys ahaan oo dadka qoyska ka wada dhaxaysa waxaa dhici karta in adigu kalsoonidaada kor usoo kacdo. ama wiilka haddaad adigu kalsooni fara badan ku abuurto oo intuu kaa filanaya in ka fiican aad kula dhaqanto, ood maaragta koolkooliso, ood wax walba xaaladiisa ka warhayso, ood asaga ka fikirto, fikirkaagu uu aad asaga xaggiisa ugu janjeero, waxaa laga yaabaa kalsoonida uu shala kugu qabay mid ka badan inuu kuu qaado. dhinaca kale, cakiska kale ama dhanka kale markaan ka istaagnana sidaas si lamid ah ayaa kalsoonida loo baabi'in karaa. qofka shalay intii aad ku taqiinay, wanaagii shalay uu ku tusay, maxay ahaday kalsoonidii badneyd uu kugu abuuray, hamigii sare eed u haysay, hadduu maalinba maalinta ka dambaysa intii aad shalay ku ogeyd in ka hoosayso inuu yimaado maahana una marna kor uga kicin, oo sidaad ku taqiinay ood ka filanayso qofkan inaad kala kulmi doonto si ka liidato un aad kala kulanto maalinba maalinta ka dambaysa.
ama saacadba saacadda ka dambaysa niyadaadu hoos bay usii soconaysaa kalsoonidaadina way sii dhumaysaa heer waxaad gaaraysaa marka dambe qofkaas iyo adiga yaa idinkala qaryo ay taagan tahay waayo kalsoonidu waxay dhadhan u yeeshaa nolosha qofka bini'aadanka ah qofka bini'aadanka hadday kalsoonidu ka dhimatana nololima sii socon karto noloshu waxay ku socotaa hadba kalsoonida laysku qabo inta ay la eg tahay haddii kalsoonidaasu dhimato si kastoo aad doonayso inaad noloshaas aadan uga bixin si kastoo aad isleedahay ama maanta sida ay tahay la dhaamaa si kasta oo aad ugu cag dhigto mar haddayna kalsoonidu hoos maahana kor u soconin noloshaas aakhirkeeda waxay ku dambayn doontaa fashil bay ku dambayn doontaa ama inay burburto waayo qofna keligii waxba ma hinjin karo yaa qofna keligii waxba ma hinjin karo waxay wax walba ku fiican yihiin isla qabadka in la isbarbar taagan yahay la isla qabanayo wax la isla fahmaayo wax la iska dhaadhicin karo haddii xataa qaladaad yimaado nolosha la isla fahmo oo la iska dhaadhicin karo oo qof dadku waa bini aadan malaa'ig ma way qaldami karaan laakiin haddii xataa qaladaad yimaado oo dadka soo tafaham xataa soo kala dhex galo ama qaladaad muuqda ay yimaadaan in laga wada hadli karo oo laga wada munaaqashoon karo oo wax la isla meel dhigi karo balse labada qof hadday noqdaan dad aan islaba jaan qaadi karin oo kaafiya kala dheeri ah arrintooda ay meel kala fog ay kala taagan tahay halkaas waxaa ka imaan kara burbur nololeed marka walaalayaal waxaa muhiim mar walba u ah qoysaska Soomaaliyeed iyo shakhsiyaadka Soomaaliyeed oo xataa kaligood nool kalsoonidu tiir bay nolosha u tahay dhadhan bayna u yeeshaan nolosha qof walba oo qof nolol wadaag la ah ha ku dadaalo sida uu kalsoonida u kobcin lahaa oo u dhisi lahaa yaanan la yaraysanin in qof kula nool la yaraystaahi waxay keentaa fashil nololeed marka walaalayaal waxaan rabaa anoon barnaamijkaas ku sii dheeraanin barnaamijyada caynkaana haddii alla yiraahdo mar walbaba aan maaragtay ka wada hadli doono waxyaabaha arrimaha maaragtay qoysaska Soomaaliyeed iyo nolosha guud ee maxay ahaday ijtimaaciga ama maxay ahaday populationka ama dadka ama maaragtay nolosha qoysaska aan ka wada hadli doono iyo kalsoonida sida loo dhiso iyo sida loo baabi'iyo halkaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan idinkaga tagayaa nabaadiinada ee ha ahaato korkiina iga raali ahaada hadaad xoogoo shanqara ah aad maqasheen gurigu waa guri maaragtay aan ku caa'ilo oo lagu wada nool yahay oo qoysku wada nool yahay ka raali ahaada wixii shanqara ah oo aad maqashaan waana idin salaamaya halkaasaan uga baxayaa wixii saacidaad oo channelka like-ta iyo share-ka iyo maaragtay inta aan subscribe garaysan inayna rukumato oo aan mar walba halkaas iskala jaan qaadno saaxiibayaal waa xaqiina waxaan idinkaga tagayaa nabad iyo caano wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.